maalmihii la soo dhaafay kulan ka soconaya magaalada Muqdisho oo looga hadlayay tiknoolajiyadda iyo barashadeeda heerka ay laag tahay Soomaaliya ayaa lagu soo gabagabeeyay caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho. kulanka oo ay ka qayb galeen dad khubaro ku ah cilmiga tiknoolajiyadda iyo mas'uuliyiin ka tirsan dawladda federaalka ayaa looga hadlay heerka ay gaarsiisan tahay tiknoolajiyadda Soomaaliya iyo higsiga halka hadda uu yahay. khubarada baratay cilmiga tiknoolajiyadda ayaa ugu dambeyn isla gartay in Soomaaliya looga baahan yahay fiilo kale oo dhanka internetka ka xoojisa hadda mid la isticmaalo. maxamed maxamuud maxamed hormuudka kulliyadda injineerinka ee jaamacadda Simad ayaa sharaxaad ka bixiyay shirka iyo natiijadiisa. kulankan wuxuu socday muddo 3 maalmood ah. maalintii koobaad waxaa aad loo saaray in laga sameeyo workshops iyo tutorials iyo tababaro tiknoolajiyada topics-ka ugu dambeeyay ee ku cusub. maalintii labaadna dadka researcherska ama cilmi-baarisayaashu waxay ku soo bandhigeen presentations ku saabsan papers-ka ay sameeyeen iyo cilmi-baarista ay sameeyeen. waxaa ka soo qayb galay dad ku dhow ama cilmi-baarayaal ku dhow kontumeeyo, qaarkood dalka ay joogeen, qaarkoodna dalka dabadiisa ayay ka soo galeen oo waxay joogeen Malaysia iyo Turkiga oo kaleeto. kadib maanta wuxuu ahaa maalintii la soo gabagabeynayay shirkaas. maanta waxaa aad iyo aad looga dooday laba mowduuc oo aad iyo aad muhiim u ahaa, oo mid ku saabsanaa waxbarashada iyo tiknoolajiyadda, midna uu ku saabsanaa internetka Soomaaliya iyo xaalka uu marayo maanta. waxaa aad iyo aad la iskugu dhiirigeliyay in waxbarashada iyo tiknoolajiyadda sare loo qaado oo jaamacaduhu ka shaqeeyaan inay yeeshaan centers ka shaqeeya ICT-ga ama horumariya waxbarashadana aad loogu dabaqo tiknoolajiyadda oo lala tartamo wadamada dariska ah iyo Yurub iyo Aasiya intaba. kan kalena waxaa shirkadaha internetka bixiya ay aad loogu dooday oo looga dooday internetka Soomaaliya iyo inaysan dhicin sida aantii dhaweyd oo kala dhacday haddii internetka go'o in la heli karo meel kale oo loo baxsanayo lineska ama cableska marabadan laga soo xiro line kaleeto oo backup u noqda midka hadda jira. wax badan ayaa la kala faa'iideysay, dad badan ayaa iskugu yimid. waxaa ka soo qayb galay shirkadii Hormuud oo programkan ay taabagelineysay, shirkada Somtel iyo Somaliland iyo Somnog iyo shirkado badan oo ka shaqeeya tiknoolajiyadda. jaamacado kala duwan oo wadanka jooga ayaa iyagana joogay, ugu horeysa jaamacadda Jumhuuriya. dadkaas oo dhan waxay aad iyo aad uga doodayeen inay horumariyaan tacliinta iyo maaragtay cilmi baarista ku saabsan sayniska, injineerinka iyo tiknoolajiyadda. Cali Aadan Muumin, Goobjoog, Muqdisho.